deeqdan ayaa dhammayd 429 milyan oo shilinka Soomaaliland waxaana ay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay ku wareejiyeen gudida heer qaran ee abaaraha kuwaasi oo joogay golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro oo halkaas warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay inay ugu talagaleen dadyoga ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada gobolada bariga Soomaaliland waxaan halkan maanta ku gudoonsiinaynaa qaaraan ay iska jareen xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay kaga qayb galayaan gurmadka walaalahood abaartu tabaalaysay ee dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland deeqda qaaraankaas oo dhan 429 milyan oo Soomaaliland shillings ah waxaan jecelahay in aan aniga ka wakiila golaha dhamaantii aan gudoonsiyo gudiga abaaraha ee heer qaran lacagtaas oo ay bixiyeen xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxa jooga arkaysaan gudiga abaaraha qaranka oo ka mid yahay wasiirka diinta iyo qaafta Sheekh Khaliil mid kamid ah mas'uuliyiinta gudida heer qaran ee abaaraha oo isaguna la hadlay warbaahinta ayaa uga mahadnaqay xildhibaanada golaha wakiilada lacagtan ay iska soo ururiyeen ay ugu talagaleen dadka walaalahooda ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada kamid ah gobolada Soomaaliland iyo golaha wakiilada wakiilku ka yahayba aad iyo aad baad mahadsantihiin Ilaahay idinka abaariyo sadaqadaana sadaqa maqbulaha Allah ka dhigo halkaad ka soo saarteen tuka khayr badan Allah ku bedelo waxay runtii dareen ka tahay oo ay muujinaysaa damqashada aad u leedihiin dadkiina iyo walaaladiin iyo xilka runtii saaran shucuurka aad ka qabtaan kulliba ducada sheekhaan uga tagi doona Sheekh Ciise laakiin aniga runtii eraygu waa mahadnaqaas inaan mahadnaqo gudoomiyaha iyo golaha wakiiladaba oo deeqdaas uga mahadnaqo abaarta baahsan maanta runtii haysa maaha mid curada iyo mid maxaan ku raadayay ugu batoona waa mid in barisatay oo dul fadhiisatay waliba ifafaalaha muuqdaana uu eegyahay inay tahay runtii mid jiitami doonto soo noqon doonta oo inooga baahan tala iyo qorshe iyo tabaabasho wanaagsan maanta waxa weyn abaarta in haysa ka hor waxa weyn 6 bilood tukalna daala dhacaynay tii hore raadkeeda aan naga dhamaanin oo raatideedii ay noo sii rafanayna tan hirdideedii ugu dhufatay waxay ahayd taasi dadkii ay saameysay lagu qiyaasay 2,240,000 qof baa lagu qiyaasay dadkii runtii abaarta hore ay haysay abaartan imikana halkay taagan tahay oo bil waliba ah 1,500,000 maraysa qaaraankan ay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ku wareejiyeen gudida heer qaran ee abaaraha Soomaaliland ayaa kamid ah qaaraanada kala duwan ee wali loo ururinayo dadka ay abaaruhu ku saameeyeen gobolada Soomaaliland Yacquub Saciid Kuuriya Somali News TV magaalada Hargeysa